ما أحلك يا رمضان، أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى. يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركوبة الله سبحانه وتعالى يا محدث كله عافيمات كنسي إنه متقي نعمة الإسلام ونعمة العافية. الحمد لله بن الله نهاي برنامج كيرا كون waxaynu ka heli doonaa insha Allah kuna sii daba socda barnaamijyadii dhawaan aynu ku hadleen dhalinyarta. Waxaan ku soo qaadan doonaa qaybtana dhalinyarta iyo noocyada ay leedahay marka ay ku jiraan dugsiyada ama noqdo dugsi sare ama dugsi dhexe ama dugsi hoose. barnaamijkan waxaan usoo diyaariyay si aragtidayda ku saabsan oo aragtidaydu baan ka dhiibanayaa si la tahay aniga aragtidayda gaaban anoo adeegsanaya insha Allah ta'ala. inta aan barnaamijka guda galin waxaan codsan lahaa inay asxaabtay daawanayso asxaabtaan nahay dugsiyo fara badan iyo meelo fara badan nolosha soo wada marnay inayna si kale u fahmin oo inaan moodin inaan iyaga ama taagayo ama qaar kamid ah taagayo ama ay hadalkaygu ku saabsan yahay hadal maxayna gaar ku socdo kuma socdo. runtii waxaan usoo diyaariyay aragtidayda ahaan ardaydan oo noocyo kala saaray insha Allah ta'ala inayna saa u fahmin ayaan ka rajeynayaa. waxaynu bilowna barnaamijka waynu ognahay dhammaan dhalinyarta Soomaaliyeed badankoodu waxa ay ku jiraan waxbarashada dugsiyada oo bartaan qof dhigta maxayna dugsi sare mid dhigta dugsi hoose iyo mid dhigta dugsi dhexe way isku jiraan. marka aan isyiri waad kala saari kartaa ardaydaas u imanaysa iskoolada saddex nooc oo kala baxaan يعني ardaydaas soo xaadiraysa galaaska ama iskoolada wada tagaysa saddex nooc oo kala baxaan. aniga mar fikir ahaantay saan adeegsanayo koow waa inay noqdaan arday toosan oo dantigarad oo waxbarashada ku fiican oo waxbarashada la jeclaynay. laba waa inuu ka labaad noqdo mid dhexdhexaadka ah oo waxbarashada uu arka mid la tago lagana gudbo saa jaamacad lagu galo. iyo saddex ka nooc saddexaad oo ah mid isagu kaba dhacsan oo waxbarashadan banacsan oo waxbarashadan wax dana ka soo galin oo dooniba. saddexdan nooc oo kala baxan ardaydu markay dugsiyada iyo ku jiraan iskoolada saddexda umuya mid dantiisa garanaya oo waxbarashadan xiiseynaya iyo mid dhexdhexaad oo arko waxbarashada in fasal lagu gudbo fasalka loo gudbo tahay oo imtixaan iyo wax la galo iyo mid isaguna inta kaba dhacsan oo waxbarashadan caqabad kale ku taho oonan jeclayn waxbarashada. haddaynu ka horeyno astaamaha ardayga koobaad ardayga fiican waxbarashada ku dadaalaya waxbarashada hammi kale yani u halgamaya ku dadaalaya kow astaantiisa koowaad waxa kamid ah waa inuu arday yahay maadooyinka lagu dhigay dugsiga loona soo dhigay inuu arday yahay muraajaciye had iyo jeer ku celceliyo xiftiyo yani ka soo baxo xageey. laba astaanta labaad uu leeyahay waa in arday macalinkiisa ixtiraama oo macalinkiisa ka dambeeya oo maqla wuxuu yiraahdo amarku farna qaata. waa astaanta labaad uu leeyahay ardayga koobaad waxbarashada hammi kale ku dadaalaya. astaanta saddexaad uu leeyahay waxa weeye wacyi iyo waana wuxuu koro waa arday asxaabtiisa inta la galaaska ah ama iskoolka isla wada dhigtaan u jeediya inta uu u jeedin karo waa arday xaqaana ka qayb qaata. afar astaanta uu leeyahay waa arday ka qayb qaata programyada ama barnaamijyada iskoolka kuwa ugu door karo inta noqoto waxbarasho tartameed inta noqoto suugaan tartan ah inta noqoto sport waxyaabahaas oo arday ka qayb qaata. astaanta u dambeysay uu leeyahay iyo waxyaabo astaamo badan uu leeyihiin ardaydaas oo kale waxa ku soo koobay afartaas. astaanta ugu dambeysay uu leeyahay waxa weeye iyo sifaadka uu leeyahay waa arday ku dadaala in uu kaalin fiican galo ama kaalintooda ha noqoto ama kaalinta laakiin arday ku dadaala in uu waxbarashadiisaasi yani meesha uu tagayo uu ka marakeeno oo noqdo ardayda ugu horeyso kaas waa mid. ardayga labaad hadaynu soo qaadano ah mid isagu waxbarashada taga hamigiisuna yahay iskoolkana moodayo in la tago oo laga soo noqdo imtixaan la galo la gudbo. kaasi waxa weeye waa arday waxbarashadiisaas ka dhigta macalinka xagga macalinkana dhib isku hayaan oo iska bartaa wuxuu baranayo macalinkiina wax dhib isku hayaan. labadaas taamood kadib waa arday waxa weeye imtixaanada u galo inuu kaga gudbo fasalba fasal
hadduu fowan ahaa inuu imtixaankaas maalinta la yidhaha fowan baa loo fowan 2 loo gudbay imtixaankii weynaa inuu soo diyaariyo imtixaanadaas kadibna markuu arko resultigiisii uu leeyahay alxamdulillah waan gudbay waa arday saas u dhaqmaya oo isagu u arko waxbarashada in ay tahay in la kala gudbayo oo fowan lagu gudbo fowan 2 lagu gudbo fowan 3 waan wax sense badan siinay inuu dadaalo iyo inuu kor isku qaado korna iskuma qaado ardaygaasi hoosna iskuma dhigo oo arday ma bayno dhexdhexaad weeyaan hoosna iskuma dhigo korna iskuma qaado waa waxbarashada in fasal loo gudbiyo ka saddexaad haddaynu astaamihiisa yar waxoogaa ka tilmaamno mar raba inuu fiidiyowga dheeraado maadaama si yaroo guud inaan soo koobno oo de nin anigu wax badan soo ognama yihi fikirkayga gaaban baan nila wadaagaya ka saddexaadina waa arday aan waxbarashada danka lahayn yani si qasab u miskaga jooga ama waaba waxbarashada nacayaba caqabad kale ku ah waxbarashada caqabad ku ah kow astaamaha uu leeyahay waxa weeye waa arday sidaynu ogsoonahay macalinka dhiba macalinku khaatiyaan taagan yahay markasta office-ka looga yeedho waalidka u yeedh yani waxyaabahaas oo dhan maadaama wixii waxbarashadii niyad uma hayo inuu iskool tago niyad uma hayo taas waa familiga unbaa kusoo qasbaya laakiin isagoo intan oo dhan dantiisa maaha astaanta labaad uu leeyahay waxa weeye waa arday marka uu galaaskii joogo buuq badan oo buuqiisu uu hawada gaadho ardayda iyo wax la baranaysa iyo kan dadaalaya ku dhex jira iyo intan kale ay iska fadhidaa hal jeer buuq ku wado waa ardaygaasina astaanta saddexaad ee uu leeyahay haddaynu soo koobno waxa weeye waa kama qayb qaato barnaamijka dugsiga laga qabto kama qayb qaato hadduu ugu bato wuxuu ka qayb qaataa tartanka isboortiga xaggaa markaan joogo waxay aan mar hore barnaamijka usoo sheegay yidhi ha laga raali noqdo waxa moodina inaan dadka qaaran ujeedo barnaamijka si guud baan uga hadlayaa dhowr iskool oo kale waan soo dhigtaa anu waxyaabahan kasoo arkay markaan isu geeya fikirkayga gaaban nila wadaagaya ha moodina inaan asxaabta waxaan ku celinaya mar labaad inaad si kale u qaadataan ayaan idinka digaya hadduu bato wuxuu ka qayb qaataa tartanka isboortiga ta ugu dambaysa leeyahay astaanta labaad dambaysa waxa weeye uma kala soona inuu gudbo iyo inuu gudbi waayo hadduu gudbana alxamdulillah wuu yidhahdaa hadduu gudbi waayana xaggiisu kasii wadaayo maadaama wixii dee niyad buuma hayo waxbarashada insha allahu tacaala intaa ayaynu kusoo koobaynaa barnaamijkeena mar raba inuu sii dheeraado oo waqti badan sii socdo waxaan ogeysiinayaa inaad barnaamijka dambe insha allahu tacaala la socotaan badanka dhalinyartan ka hadalnaa insha allahu tacaala maadaama waa dhalinyarta in laysasaxo oo wixii khalad la isku sheego oo la iska reebay waa bulshada hagaagayga hadday dhalinyarta hagaagtana bulshada inteeda kale hagaagaysaa insha allahu tacaala barnaamijka kale waxaan kusoo qaadan doonaa kan xiga saddexdaa noocayna soo sheegnay marka ay ka gudbaan iskoolka diba ka baxaan caqabadaha ay kala kulmaan jaamacadda ayaynu insha allahu tacaala kaga hadli doonaa intaan kusoo koobaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu